بلو بسم الله الرحمن الرحيم مقعي عبد الله موسى القعل runtii أنا أدعو حماهاي وحن سيدا هذا عن قصة بحي سلدقة دقمة حمرويني area في الحدود مثلا سلدقة في الحدود متصير له يقارنه وحا يحري وزارة ورفافنت وحنا لا يحري محل حقاق النووي سيد حقاق النووي دي سكرتا ونبتي أنا ولا جيدو أنتي داول شرتي تي في دا ما بدا عدن قرنها مقدشو تي في كان يعني راديو مقدشو يو اس ان تي في وحان كسي دينجري فريمو ودن ومدة ما دولة نمد runtii in fariimahaygii laga ganacsado ay maanta maraysaa dabadeed anigina markii aan damcay inaan ka hadlana in handadaad iyo xabsi la igu caagijuleeyay special ay agaasimaha waaxda warbaahinta cadaalad iyo maartay xidhan iyo bahlawi muddo saacad badan ku jiray xabsigaas xamrooyina ku yaala waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed inaanay jirin warfaafin Soomaaliyeed oo madax bannaan inaanay jirin warfaafin dawladeed oo limida waana wasaarad ka ganacsata hawlihii loo igmaday ee ay ku qaadan jirtay budgetka wasaaradda maaliyadda marka maxay ahayd fariimaha anigu sameeyeen bilaashka anoo bilaa mushaar oo bilaa bunaa marka aan maxay ahayd bilaash ugu sameeynaya dadkii wasaaraddii maaliyadda bilaash bay xaq ugu leedahay inay wasaaradda warbaahinta u xisiidayso in laga ganacsado lacag laga qaato mar haday mareysana aniga kan xaq u leeyahay inaan ka ganacsado anaana ka ganacsanaya mana joojinayo mana yani afkaygana dabo lama saari karo limashiya geeri midnaba yani waan hadlaya runtii waan ka xumahay in sida ay u dhaqanto wasaaradda dhameeyada warfaafinta oo ahayd isku xidhka bulshada iyo waxqabadka dawladda ganacsi inay gasho iimaan xumo iyo hunguri xumo ah iyo wax xun laga yaqyaqsado war aniga oo aanan mushaar qaadan oo guna qaadan ba bilaash ugu ogol inaan wax ugu qabto iyaga oo mushaar qaato mushaarka ugu badan oo gunooyin qaata inay hadana damac ka galo intii aniga yani laguma aamini karo dawladda marka in canshuur la siiyo laguma aamini karo waxaanan mar kale ku celinayaa in guud ahaanba fariimaha iiga baxa TV-ga iyo idaacadda dhammaan la ii wada joojiyo ayaan mar kale ku celinayaa waxaa hadda laga joogaa muddo 7 maalmood markii aan anigu aan yani dalabka soo jeediyay ilaa imkan waxba sidii bay wali u isticmaalayeen la xijaclana way ka haysaa wixii haddana ma ogolo inay ay xuquuqdeedii ay bixiyaan marka ummadayda waxaan u sheegayaa iyo cid kasto maamulo oo aanan ogeyn arrintanba in arrintaas iyada wax laga qabto عبدالله موسى القاعل يضع يتهاي بال رمضان وما أنت عيدها إلى حبس كو متقن على حد هويته حضنا كسر بحد أدون صلاة عيدي مع الدكان محاسبة بيه كلها هذه محاسبة بيه سيدان حقا قنوه يديسن كرتا يا رنتي سببي أيان صحو ما أنت وحال يحري ساعة مركي يا هاي 5 ساعة يا الله يحري حدنا ولح ساعة يبر يعني عاد فهمي كرتا هل ساعة يبر بنكجري شايلك أو وليبة تنلياب كلا أي تهاي إن حتى يركي أوبيجا يقول قريب ليري كم صح يعني يسوسن أوبيجا وقرين واحد دعوة واحد اللي يسوق بديه مثل أنا يجري بلا كيس بالله يحري أنا وحبابها هبيرات اللي يوصل سيدنا هو يدي سكرتا حقوق هذا وحين تايدر أفلقات وس شخصية أفلقاتين كلا هذا بهلاوي عبد الله موسى محاول جدين سأورده ما راح براني سحفظة أو ضوضاء أضاء وريه أنا نصلك الأبوان وعيقرين تكون أقابسا وسأل دور فافنتا runtii waxa aad iyo aad baan uga xumahay waxaan u jeedinayaa mid walba anigu hadii aan dambi leeyahay in aniga la cambaareeyo hadaan dambiila ahay oo ahay kan anigu yani wasaaradda warfaafinta qaladka ku sameeyay ma kula kacay waxaan ogolahay talaabo la iga qaaday kaliya cambaareen waaf laakiin hadii la iga gardaran yahay in la baaro ayaan waliba yani mar raba in lagu digto in la baaro la ogaado xaqiiqada saxda ah si ama aniga marka aan dambiilo noqdo ama loo kala saaro ayaan mar kale codsanaya runtii waanan aaminsanahay anigu ma basida ma dacwoon kari lahayn in ba hadii aan gardaranahay in wax laga qabto